السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا محمد الشاوية channel كداونا سنة ومرايا تي في. فضل حتى كعصبت إنه صابير وتابع على مدة سمسكرابتا كملال كنا فراسي فيديو كستان سوق لنا كوسو جارو ولا العو وحنا وذا برنامج برنامج هسو أنا جلس عن تنتن همين كستي حدا هاي وكلا تلفزيون كعالمي كمرايا ولا التلفزيون كعالمي كمرايا وحاولوا هرجلية برنامج قصوينا وهمين كستي الله سعون تنتن كواسو نقول دونا قصوي امتحانات caawa qisada ugu horeysa aan ku furfuri doono qisooyinka barnaamijka qisooyinka waxay tahay qisadan hortaala hadii aan idin sheego ama baa idin micnayo waa inaan ka yiraanta hortiina ka muuqda oo muddo badan isjeclaa taasoo jacaylkoodu ka bilaabmay baraha bulshada ku kulanto halkaasi oo 2 sano bas isku jeclaadeen labada qof hadii aan idin sheego magacyadooda waxa la kala dhahaa Maxamuud iyo Ayaan labada qof ayaa ku noolaa magaalada Muqdisho haddii ay ku noolaayeen magaalada Muqdishona waxay isjeclaayeen muddo badan adigu iyagoo isjeclaan aan laakiin se kulbin ayaa inanku ka tagay magaalada Muqdisho wuxuu soo aaday wadanka Itoobiya haddii uu aaday dalka Itoobiyana in badan ayaa uu ka maqnaa laakiin se labadoodu intaa way isjeclaayeen jacaylkaas uu qabeen wuxuu ahaa mid xad dhaaf ah kadib waxa dhacday in inankii soo laabto oo inantii u yimaado magaalada Muqdisho ugu yimaado kadibna ay kulmaan inkastoo aanay intii ay magaalada Muqdisho wada joogeen aysan kulmin kadibna inantii ayaa inankii balamisay kadibna waa uu u yimi marka uu yimi waxa dhacday arrin la yaab leh arrintaasi oo ahayd mid aad iyo aad inanka uga murujisay sidoo kale inantana naxdin ku abuurtay inanka marka uu inantii arkay ayaa uu arkay in inantu tahay inan naafa taasi oo lugaha naafa ka ahayd aan socon karaynin kadib inankii waa uu naxay waanu ama kaagay kadibna waa uu ooyay marka uu inankaasi inankii ooyay ayaa uu cararay kadibna waxa uu aaday dhanka iyo gurigoodii isagoo markaasi naxsan inankii kadibna inantiina way qiirootay oo way ooyday kadib markii ay inantii qiirootay way iska tagtay iyadu laakiin se wax la yaab leh kuma aysan noqon inanta oo waayo waxay ahayd mid isku og inay naafa tahay laakiin se uma aysan sheegin inanka inta ay isjeclaayeen inay naafa tahay kadib inankii ayaan ku noqotay arrin la yaab leh waanu isweydiiyay muddo far badan waqti badan waa uu galiyay sidii uu inantaasi wala yaabay kadibna inanka ayaa aad iyo aad arrintaasi ula yaabay qisada oo noqon doonta qisad taxana caawan waxaan idin soo gudbinay qaybteedii koobaad qayb labaad iyo qayb saddexaad iyo qayb afraad buu yeelan doontaa qisadu waxaana nagala socon kartaa habeen kasta hadayo kale telefishinka caalamiga Maareeye waxaan dilayahay tan iyo kulanti dambe xiiso leh asxaabta ku xiran channelkayga Maareeye TV waxaan dilayahay subscribe-tiin waa noo dhiirigelin sidoo kale like-tiin noo sharaf noona sii share gareeya video kasta aan soo galino aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa asxaabta ku xiran channelkayga Maareeye TV